waxaan beelka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo u guclaynayaa yeengayga ugu meersanahay. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa baryahan nagu soo noqnoqotay in khayraadkii dalkeenna la isku dayo in la gurto, taasoo ay guranayaan dad ajaanib ahi. nasiib wanaag ciidanka booliisku isagoo arrintaa ka hortegaya wuu qabtaa, waxaana ka mid ah diimamka, caashabaryada, dirxiga, shimbiraha iyo ugaadha kala duwan, harimacadaha. waana markii saddexaad ciidanka booliisku ka soo qabto airportka muddo kooban sidan iminka idiin muuqato oo kale. waxaan u sheegaynaa dadka waxaa ku howlan inaanay alaabtaasi si hawl yar ugala bixi karin dalka. waxaanu kiiskan u gudbin doonaa maxkamadda iyo xeeraaninta ku shaqada leh. xayawaankana waxaanu si joogtaa ugu wareejinaynaa wasaaradda deegaanka ee ku shaqada leh. tan oo keliya maahee waxa uu booliisku si joogtaa ula dagaalamaa dembiyada dhaca oo dhan, nooc kasta oo ay yihiin. qaar way baxsadaan, hase yeeshee inta badan ciidanka booliisku gacantay ku soo dhigaan dembiilayaasha. waxaan kaloo digniin u diraynaa dadka somalilanderka ah ee ajaanibka u fudeeya howlahaasi, iyagana waanu soo qabanaynaa. ugu dambayntii waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha casaawajillaha inoo howlyariya hawshaas. mar labaadkana taliyaha ciidanka booliisku wuxuu hambaliyo aad iyo aad u fiican u diraya dadweynaha somalilan ee sida xalaasha ah, sida wanaagsan ee xorta ciidanka booliiska loo shaqeeya. waxaa kaloo taliyaha ciidanka booliisku aad ugu hambalyeynaya ciidankii booliiska ee soo qabtay faldambiyeedkan, gaar ahaan ciidanka booliiska ee airportka jooga. waxaan kaloo ku daray intaa eedeysanahan imika lasoo qabtay ee hadda hortiina taagan waa nin masri ah. wuxuu caado ka dhigtay, wuxuu shaqo ka dhigtay inuu xayawaanka dalkeena had iyo jeer doono inuu kala baxo dalka. waana daligwanta abituwaale sida uu qaba article 61 ee xeerka ciqaabta guud. waxaa galdacwadeedkiisa lagu darayaa waana nin caadaystay oo shaqo ka dhigtay faldambiyeedka noocan kale. insha allah waana laga saystoon doonaa dembigaa u galay. waxaa sharaf weyn oo ah haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada inaynu maanta soo qabannay qayb kale oo ka mid a xayawaankeenii oo runtii gacan baas lagu hayo. wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay qarankan mas-uul uga tahay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka oo dhan oo duurjoogta ku jirto iyo xayawaanadeena kale. maanta waxaanu qabannay qayb ka mid a caashabari oo runtii wasaaradduna soo ogaatay, ciidamada booliiska qarankuna aad iyo aad nogala howl galeen. ilaahayba mahad leh. marka koowaad mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka oo dhan oo isku duuban, gaar ahaan ciidamada booliiska oo runtii ah gacanteeda koowaad markaanu howlaha noocan oo kala qabanayno. waxaa kaloon u sheegaynaa dhammaan ciddii ku howlan ka ganacsiga aan sharciga ahayn ama sharci darrada ah ee xayawaankeena iyo duurjoogteena ee qaranka in dowladda oo dhan ay u soo jeesatay iyadoo isku duuban, hadday ciidan tahay iyo hadday wasaaradda tahayba, khaasatan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. mar labaad iyo mar saddexaadna ciidanka waa u mahadnaqaynaa. waxaan rajaynaynaa inaanu sharciga horgeyno cidda kasta oo maxay tahay ku xadgudubtaa arrimaha deegaanka. bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin. runtii shacabka somalilan maantana mar labaad waxaan la wadaagaynaa in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo kaashanaysa ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigtay caashabari nin ajaanib oo masri watay. marka runtii ma aha markii koowaad falalka noocan oo kale la qabto. sidii bulshaduba hore ula socotay, mar waxa gacanta lagu soo qabtay 300 oo midh, marna 200 oo midh, marna 370 midh. iminkana tan 150 xabay ku dhadhowdahay. marka runtii waad arkaysaan oo waad dareemaysaan sida khayraadkeena dalka looga saarayo. xeerka ilaalinta qiimaha iyo duurjoogtu isagoo si faahfaahsan u qeexaya duurjoogta inaan la taaban karin, la haysan karin, waxa weeye dalka laga saari karin. waxaan waxa weeye sharciga la tiigsanaan maxkamadaha ku shuqul kale loo gudbinayaa cid walba ku hawlanba. waxaan halkan ka sheegayaa runtii oo bulshada Soomaaliland u sheegaya war khayraadkeena weeye caashabaridu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa inoo dhigay dhulka. waxa weeye waxyaabo inaan garanayn bay naga haysaa. marka runtii waxa weeye waxaad dareemaysaan in dabargoyn lagu hayo khayraadkeena. markaynu khayraad leenahay inay la fududlaan bulshoy waa khayraadkeena, haddayna khayraadkeena saa looma gurteen. marka waxaan leenahay cid wal oo ku hawlanba xeerka ilaalinta qiimaha duurjoogta la tiigsanaya waxa weeye khayraadkeena ilaalina. waxaan u mahad celinaa ciidanka booliska iyo ciidamada kala duwan
oo runtii hadhiyo habeenba heegan ugu jira sidii khayraadkooda dalka ay u ilaalin lahaayeen nala dareemeenna waxa weeye culayskan waxa weeye lagu hayo khayraadkeena kala duwan